qisadani waxa ay ku saabsan tahay nin Ciraaqi ahaa. ninkani wuxuu ka shaqayn jiray inuu qalo xoolaha. qof walbana xoolaha ayuu qali jiray, lacag ayuuna ka qaadan jiray. maalin maalmaha ka mid ah isagoo wadada soo socda oo baabuurkiisa wata ayuu wadada wuxuu ku arkay islaan dhaawacan, mindina ay caloosha ugu jirto. baabuurkii ayuu ka soo degtay, wuxuuna isku dayay mindida inuu ka soo saaro. isagoo halkaas ku sugan ayaa dadku ku arkeen, waxayna maleeyeen ninka inuu dilay naagta. ciidan ayay u waceen. ciidankii markay ay yimideen ninkan xaalka ku arkeen, ninkii waa uu diiday, wuxuuna dhahay ma dilin aniga, balse waxaas kama yeelin, waa ay wadeen xabsiga ayayna geeyeen. ninkii markii xabsiga ay keeneen waa ay garaaceen si uu u qorto dembiga, ilaa waxay garaacayeen muddo 2 bilood ah. ninkii balse waa uu diiday. maxkamaddii waxay ku xukuntay ninka in la daldalo. markii la geeyey meeshii, ninkii wuxuu ku yiri, isugu waxyar arrin ayaa idin sheegaya, iga dhageysta. anigu intaan naqan xoolo qalayga waxaan ahaa nin ka shaqeeyo doomaha. waxaan ka shaqeyn jiray webi. dadkan dhinac ayaan ka soo qaadi jiray, waxaana geey jiray dhinac, waxaana ka qaadan jiray lacag. anigu halkaas ku sugan ayaa maalin waxaa doonta ii soo raacday gabar aad u qurux badan. gabadhii waan la sheekaystay, waxaana doonay inaan ka doonto ciddeeda, balse ciddeedii waa ay ii diideen. waana iska soo laabtay anigoo niyad jabsan. sanad kadib isla gabadhii ayaa doonta ii soo raacday iyadoo wato ilmo yar ay dhashay, balse waxaan ka codsaday inay isku kay dhiibto. waa inay ii diiday inay isku kay dhiibto. waxaan ugu hanjabay inaan cunug ka dili doono haddayna isku kay dhiibin. cunugiina webiga ayaan madaxa u geliyey anigoo isku dayaya inaan gabadha ku handado, balse waa ay iga diiday. xaalkaas anigoo ku sugan ayaa cunugii hadalkiisii go'ay, webiga ayuuna ku dhintay. cunugii webiga ayaan ku tuuray. si dembigayga loo ogaanina gabadhii meesha ayaan ku dilay. doontiina waa aan gaday, meeshan waa iska soo tagay. waxaan bilaabay inaan ka shaqeeyo shaqada xoolo qalidda, balse waxaan ogaa dembigii aan galay mar uun in layga goyn doono. se gabadhani hadda anigu ma dilin, raadiya dembiilaha dhabta ah ee gabadhani dilay. balse waxaan xaqiiqsaday hadalkii ahaa in dilaa walba mar uun la dili doono. waqti baa ka soo wareegtay. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين.